يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. waxaan rabaa kaliya u soo degaya inaad idinka digo laba ariiq oo in iraahdo manhajul hudaati bayna al-ghulaati wal jufaat. dadka ahlu khayrka ee hanuunka waxay u dhaxayaan laba ariiq, jufaat iyo ghulaad niman oo aqaan. ghulaad waa nimanka xalayna aan ka soo shanqariyay usul badan aan ku kala tagnay. jufaatna waa niman agtooda wax ka gaalooba ma jiraba, wax ka gaalooba ma ilaahay hadii la caayo, haddii ambiyada la gaadiyo, haddii ilaahay lagu kufriyo. laakiin madhabkooda ma way doonaanoo markay wadaad isku dhacaan way takfiirin doonaan. jufaad baan ku aqaana warkooda weligood basaas ahaa jirtay. alghulaad nimankan u aqaano ee hadda inta matashaan ogahay waa jamaacatu maxamuud nuur cusmaan. usuul badan baan ku kala tagsannahay, wax yar baan idinka tilmaamay aan iskaga taga warkee. alaslu cindii fii cumuumi lmuslimiina wa alislaam ilaa man calimtu kufrahu. cumuum lmuslimiin waxaa aniga asal u ah inay muslimiin yihiin. beenta la wareejiyey iyo sheeke barlaydu socon weyday, meel la gaari weyday. dacaayadda aad wadaan bacdu lmukhaalifiin ay wadaanna oga tegi mayno takfiirinta bacdu tawaa'if aan aaminsan inay gaala yihiin. 10 jeer waa idiin sheegay. ninkaan iska laadiyo rudhown baan kaga dhaganaan ilaa uu ilaahay iga fujiyo. inaad fahanteen baan u malaynaya. laakiin cumuum lmuslimiin عموم المسلمين أصل وحو أكتيدا إني مسلمين إلا من علمت كفره أما طائفة هالنقض أما فرد هالنقض. قوليهن الأصل في عموم المسلمين وحاوي أكتود والكفر إنت نكور قبه دوضنا والله قالي مقالاتنا وإن دحمرين وده الله خاصر الدحمرين وأوجاي ساسا كوجا هطيك النقضين وهرق في عنا أسكوها يكهرين. الأصل في عموم المسلمين وهم أكتود والكفر إلا من علموا إسلامه وكوكلا تجنا. أصل كلابات كوكلا تجنا وحاول الأصل في سكاي البلاد الإسلامية. بلدية كنت يدور كهذا أدونك كجري إسلامك أي شيكتان. دولتها كتلية هذي دوران قالبها النقدين. سدانو أمن سنة أمضى كنا والأكتيد أصل حوا إن المسلمين وإن كفرت الدولة والحكومة. وحلقيا بقينا مدحوين يماملكي هوستا كحريقو. شعبك لكن برشد المسلمين تا نين كان اسلام كي سوبنا وهو مسلم كان كفر كي سوبنا وهو كفري كان اغينا دارتان راعنا ودار اسلام اسقنا وهو مسلم ودي فانتين بانو ملاي اصل كصدحاد كو كلا تغينا وحا كميدا نينكي شهادتين كان موجيه شعار الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله يداده انا وحان له هو مسلم يان هلو ناقض ninka uu ka muuqda mooyeen ay waxay leeyihiin maya laa ilaaha illa allah muhammad rasuul yiraahdo waa in laga saxo shuruud laa ilaaha illa allah al-ilm al-munafi lil-jahl kow ee isu qabo as-sidq al-munafi lil-kadhib al-ikhlas al-munafi lin-nifaq al-yaqin al-munafi lish-shak hawlaha laga tiriyo. anu waxaan leeyahay ruuxa islaamnimada muujistay ahkumu bi islaami hukman hadduu doona haba noqdo hoosta hoose منافق احتمالك هو صانع هو إنت لما أها وحساب مع الله هو احتمالك هو سمرك قصة يفبحوا بنان كيماده أيام وركيسة عبينا إياه أنتم لكن شهادنا يوحنا لا يواد في عنده وراء الصعود أيوة حيلي لكن كل وإن لقى صحوه قضى الله وإن لقى تابته وحنك لقاداء الفرق وحنك لقاداء إسلامك حكم جاء يمتك حقيقي أيوة حوي إسلاما حقيقي أهين أدونا كما شقي آخرا كما شقي dhibkaasna waad aragteen wuxuu ummadda u geystay wad ogtihiin. waxaan ku kala tegaynaa muslimiintu masaa'ilka isku khilaafeen waa xalaal iyo waa xaaraan axna kuma takfiiriyo anagu. mas'ala ay ummaddu isku khilaafto waa xaaraan iyo waa xalaal axadna kuma takfiiriyo. laakiin waxaa laga yaabaa mas'ala la isku hayo waa kufri iyo ma ahe kufri ma aha inaan doorto ra'yiga odhanaya waa kufri taana waa waj ay culimmadu maraan oo leeyahay waadna garanaysa. ayagu laakiin waxay caan leeyihiin mas'ala la isku hayo waa xalaal iyo waa xaraadka inay ku takfiiriyaan. maxaa kamid xalaa idin soo sheegay
murtadka muntasibka gowriciisa bismi illaah wallahu akbar uu ku gowracay wax ka khaldan uusan jirin ninka cuna waa gaafir bay leeyihiin waa kaafir waxayna geliyaan shirku lwalaa'i walbara shirku lmuwaalaad bay u yaqaanaan aniguna masalatu dabaa'ix walmanaakix waxaan hoosgeeyaa baabu alxalaali walxaraam masaa'il buu leeyahay laisku waafaqay iyo mid aan laisku waafaqin waa leeyahay laakiin takfiirku waa in daliilkiisu uu caddaado iyo kufrigu uu caddaado ayib يعني عدينكي معتبر أو صراحة أو ظهورا كدونها النقطة. مسألة كلام كوكا تينا وحاكمة لا أتوقف في حكم مجهول الحال. روح مجهول الحال كحكم كيزو أنا وكجوك سلمي أحكم بإسلامه إما بأمارة في نفسه أو بتبعية لوالده أو بتبعية لداره. لا أتوقف طرفة عين في الحكم بإسلامه سيدي السبا ومجهول الحال. ayaguna nimanaysa islaamkiisa hubsanin ma aha islaam intaanu ka warqabo waxaan ku kala tagaynaa sunnada iyo axaadiista nabiga ictina khaasan u leeyahay una sameeya anigii xirtaydu inta iga warqabto waqtina waa ku bixinaa mana qabno wax la yidhaahdo xadiidku saxiixinka baa ku jira hadduu daahirkiisu ka hor yimaado sunnada qur-aanka waan tuuraynaa ayaguna way qabaan waana weliba masaladan si khaas ugala dooday mid aan qaraabanayo cabdiraxmaan fasiix la yidhaahdo xadiidku wuxuu yidhi hadduu xataa bukhaari muslim ku jiro daahirkiisuna uu khilaafo qur-aanka uu khilaafo waa tuuraynaa waa dhaqan lagu yaqaanay muctasile iyo khawaarij ahlulbidac dhan baa lagu yaqaanaa usuul badan baan ku kala tegaynaa qadiyadda waxaa weeye nimanka warkooda waa ogaha anugu yaa lagu leexidhay in yar qolihii jufaadda aan ku dhaho jufaad waan igu daasheen baan u male aan ku gabagabeeyo jufaad waa kuwama jufaad waa jadiidiyo iyo اعتسام waxaa ka daran akhwaal muslimiin oo ayagu habar xataa muxuu ahaayay suubaraha cayday ninkii akbar maxay leeyihiin takfiiri wey marka qolyaha jufaad baan u aqaanayay ku baabeen usuushooda maxaa ka mid ah waxay qabaan intaan ka warqabo mukhaalifiintaas si guud iyo si gaar ahaaneed isku soo qabo si guud baan u hadlayaa masaa'ilka diineed lama qaybin karay dheh looma qaybin karo مسائل ظاهرة جلية إسكعب هي مسائل خفية ومركا روحي كخلطمة لكلا قيبية من الروح اللي عذر دار أصالة من الروح على تكفير أصالة إسنا أظهر ساسكب الجيراني مسائل كالدين لما قيبين كري هذين مسألة والباء والروح كخلطمه وإن لو عذر دار جاهلك وإن لو عذر دار متأولك وحكسوا بحد مركا أصول شو ذا نبي محمد نك عاية وإن لو عذر داره دون جاهل بان كاهي متأول بان هاي وحكى صوب بحضي ننكي يدا هذا آخران ما جرت قيامه إلا عذر داره وحكى صوب بحضي ننكي يدا هذا حكم المرتد ما بجره سيدي كي أو طبلي وادو تكفيرنا يا معاه مقعيس عبد السعيد محل قلت تكفيري إيش هذا سو جاهلكم ما هاي كل جاهل ومعذور سو ما هاي وجاهل حوا قرن ما هاي حديث النسائي كي يمدي أحاديث بسكوت عبر السدي وذا مجرمين وضبق علي وخلطمي ومسلم خلطمي كل جاهل معذور سميدا به ولا فرق بين المسائل إن مسائل كالقيبيين ومنهج أهل البدع والمعتزلة وارجع حق هذا وارجع حق وكعي أنا التقسيم كأصلا قبل مسائل كإلا كالقيبي وأنا طريقة السلف بان له هذا كورنا وكان نقاش waxaa kuu soo haray jaahilka ictibaaru xaali jaahil baa anagu qabaa in la kala qaado daarta ruuxuu ku nool yahay in la fiiriyo xilligu asagu soo islaamay in la fiiriyo masaladu ku dhacay la fiiriyo ee waxay dhaheen kullu jaahilin wa kullu mutaawilin waa macduur waxaa la yaab la marka sida hadda koox loo takfiirinayo anugu dama dhagaysanay xerta rag ka mid ah ii sheegay qolyo harti u badan baa waadhow loo dhameeyay baa la yidhi wasaarta uma aysan badnayn محمد جبريلي إيشك محمد جبريلي يعني برهان يدهدان معرفة عن جراد دكور إيش قبو عبد القادر كشك إيو ياكلي علي الراقي وذاك للكسائي ياكلي أظن من بالا تكفيرية ليدي أرو مدقي سنين ما ندب قلين دنا كمان لكن وحن أقهي أصول اعتصام يجديد يا أخوان المسلمين من كان يسن قال نقون كريم ما نقون قرار
haddii usuusha aad ka toobad keenteen waa idin soo dhowaynaynaa nimankaana waa idinkula duulaynaa weliba taad dhigteen to ka daran baan dhigaynaa laakiin baashan burdhaglaysiga ah ma soconayso waxaa usuushooda ka mid a ruuxu gaalnimo walba ha ku dhacee hadday dhici karto inuu cudurdaar leeyahay lama tagfiirin karo ma waxbaan ka booday marxaba waan baraarujin doona insha allahu tacaala waxay qabaan ruuxu gaalnimo marku ku dhaco cudurdaar in loo raadiya waa waajib ma aha inuu leeyahay geedi baa gaalnimo ku dhacay wax cudurdaara kuma ogid iyo maanic adugu waa inaad doontay waa inaad baadho waa waajib in loo dondoono lacalla wa casaa war ninku gaalnimo ku dhacay baashur way iska caddahay maanici anigu ma ogi war sababkan dhacay xukunkiisa aan siiyo asalkuna waa in xukumka sababkiisa la isku dhajiyo maanic xukumkaa difaacana ma jire waa side maya wujuubu talabi almacaadiir baan ku ogaa anugu haddii laga toobad keeno waa gooni warka inaad fahanteen baan u malay waxaa ka mid ah ixtimaalu lmaanic hadday dhici karta ruuxu inuu cudurdaar leeyahay lama tagfiirin karo cudurdaarka loo kala qaaday mid maqbuule waa cudurdaar oo dhanba shubha un hadday jiri karto qolyihii ogaadeen waagii xarooday maxaa la yidhi shubhat likrah baa jirtaa shubhat likrah niman tayo qaba oo daraad lagu wado oo bahasho saas lagu kala baxay maxaa la yidhi shubhat likrah kuwana horta awal shubhat likrah xaggee ka aaday shubhat tawiil shubhat ljahli shubhat kada xaggee ka aaday nimankan xeruhu baa ku yidhi cajalaha dhegaystay iyo qoraalihii laga qoray nimanka markii la weerarayay ila xer badan iyo wadaaddaa iskugu tegay nimankii yaan ku yidhi masalada oogu daran ee nimanka lagu eedeeyey maxay tahay waxaa oogu daroo lagu eedeeyey buu yidhi inay dhaheen gaaladu yuhuudiya nasaaradu wixii la halmaana aakharo jannay gelaya innaguna jannaan gelayna nin walba diintiisu ku janno gelhaya wadaaddaa ku aafoobay shubha hadda taa ku jirta marka loo fiiriyo usuushu ictisaam iyo jadiidiye la fiiriyo ikhwaan muslimiin hee shubha ku jirto niman baa ku aafoobay aayaddii ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnasara wsaabi'iina man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir wacamila صaalixan falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim yuhuud waxaa la yidhi janna leeyihin hadday hagaagaan nasaare janna ay leeyihiin saabi'iin janna ay leeyihin muslimiin dadkao dhan waa diimo fiican hore u socda niman baa ku aafoobay kutubna ka qoray war haddaad warkan dayn weydaan nin aan shubho iyo cudurdaar adduunka yeelanayni ma jiro been yaa laisu sheegay wixii hore ummadda aad ku lugaysan ama ka soo noqda ama qolyahan masaakiintood ogtayn inaysan difaaci karin beerkan yaan lagaga tuman ya waa soo socda ha degdegin ma sugto meher maa la yidhi waxaan ku ogaan jiray usuushooda jufaadda nimankaan u aqaano waxaan ku ogaan jiray inay dhaheen iqaamat اlxuja shardi ah asalka guud waa ka wada soconnaa laakiin aafada hoose ku jirtaan kuu sheegi ay ku jiraan waxay leeyihiin xujada yaa ogay ninka xujada ku oogahaya ee xaqa gaadhsiinaya ee xumaantuu galay ooga degaya waa inuu yahay ninay asagu isku fiican yihiin haddii ninkaa gaalnimada ku dhacay iyo adugu xoogu xurgufa idiin dhaxayso xujada kuma oogi kartid ma xusuusta warka ayaga muxaadaraad baa laga lahaa qawl halka laga sii dayna lagu daalay kutubna in lagu qoraan umalaynaya nimankan hadda xujada ku ogay nimana col yihiin baa xujada ku ogay biya ya war hawsha waxaa iyada tahay baasha ama ka noqda ama iska daaye waxaan ku ogaa ayagoo yidhaahda ruuxa ku dhacay gaalnimo waa in daliilka lagu gaalaysan u yahay qaطci ilaa bidaliilin qaطciyin daliil qaطci ah oo ninkaas gaalnimadiisa keena fardi gaalnimadiisa keena adduunku waa naadir buu ku yahay ee shareecada naadir buu ku noqonaya cumuumaad baa u badan nusuusta cumuumkana waxaa laisku ogaa afraadiisa geliday gelaysa fi lcumuum inay tahay daniya calaa ra'yi اljumhuur qaطciya calaa ra'yi اlxanafiya markaad xataa gaalnimada in ku hubsato falkiisa ayaan noqon karin sariix qowlkiisaan noqon karin marar badan sariix duhuur baa soo geli dani baa iman dilaalaad baa imanaya daciifa marar badan
war haddaa shubhat اlikrah shubhat الta'wiil wax wal cudurdaar hadduu dhici karo ixtimaalba maanicba hadduu muxtamal yahay aata ruuxii lama agmari karo xaggana aad tidhaahdeen xujada ma oogi kara nimaa ninku aysan isku fiicinayn war gaaladan iyo murtadiinta si xujo loogu ogaa seesa ruux u gaaloobaya soo diin ku tumasho ma aha waxaa kaloo xusuustaa usuushooda ka mid ah ruuxa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi yidhaahda islaamkiisu inuu asagu muslim yahay waa qaci daruuri qaci bay dhihi jireen rag ii yimid oon kala niqaashana hataa way jirtaa hadda waxba magacooda sheegi maayo rag dalabatulcilmi ah oo qiimo badan oo masalada kaga niqaasho oon wax badan la soconin dhanka laisku hayo way jiraan hadduu ruuxu islaamadiisu ay qaci noqoto waxaa laga rabaa markaad ka takfiirinaysa in laga helo gaalnimo qaci ah gaalnimo qaci kay ka iman falkiisi baan caddayn marar badan daliilka tusahaya gaalnimadiisaan marar badan yaan qaci noqon karin maxaan qaci noqon karin cudurdaar baa jiri kara masaa'ilkao dhan baa kuu sinnaa jaahil walba macduur buu ahaa mutawa'il walba macduur buu ahaa inuu waalayaaba dhici karta ninka hadda iska socdee takfiirisa inuu waalaya ma dhici karto maybe rubama walacala soo inaga soo mar waxaa dhici karta waxaan ogaa iyadoo la yidhaahdo shacabka kenya gaalnimada ku dhaca wixii shacabka kenya gaalnimada ku dhaca laba cudurdaar baa ugu cudurdaaraynaa jahli iyo ikraah intiina hadda masaajidka fadhida mukrayiin baati waa iska fadhida mukrayiin wadaadahan gaalnimada ku dhacayso ma dhici karto in ay mukrayin yihiin soo jahalo ma dhici karto waxaa intaa ka sii daran waxay dhihi jireen gaalnimo maslaxa loo geli karaa ninka yidhi siduu ii sheegay ninkan midigta iga fadhiya ninka yidhi kitaabka qur-aanka qayb ka mid a ha la tuuro soo ma dhihi karo waxaan u galay maslaxa inaan ka digo quluwiga intan tuurideeda waa maxay maslaxan u tuuray lanna kufriga maslaxa loo geli karaa oo maxaad raadinaysaa quluwigan iyo takfiirkan xad gudbay baan ka degahayaa war nin maanta gaalnimo ku dhacay kuwa iska daa hadda aan sheegay iyo kuwa ka daran hadday usuul jifaad ku socotaan xertaan la hadlay iga daan kuwaan warkoodee waad ku baaba'aysaan waxaad hadhow ku qasbanaan doontaan kaad ku xanaaqdaanba inaad tara wixii hore ma jiraan gaal baata maxaa yeelay gaalnimada aad ku dhacday way cadda hawshaasi iska ilaaliya manhaj ulhudaati bayna algulaati waljufaa jufaadu ayaana ka aafa badan marka la fiiriyo gulaada kuwa maxay qulaada waa in yaroo meel iska fadhido meel meeshana sandaqa ku jira markaad tagto ceelasha biyahana ku dhihi ceelasha biyaha dhankeeda bari markaad tagto hee daaru islaam baad joogtaa dhan kale maxaad joogtaa waa ceelasha biyaha la socoaad in yar dhanka bari kuwa iyagoo yaba gaajis kaga dhammaan doona waxay tarhayaanna ma jiro aafada ummadda haysata waa madhabu hee aljufaa intaasaan jeclaa inaan idin idhaahdo wallahu aclam wasalam calaykum raxmat ullah barakaatu